The UN Special Rapporteur made a finding that Somali troops were fighting with the Eritrean military, including in Waxaan. Have you been able to independently verify these claims? maraykanka ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya, taasoo ay horay u beenisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka ayaa weydiisay Robert oo ah siihayaha ku-xigeenka xogayaha waaxda arrimaha Afrika ee Maraykanka waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha la sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen gobolka Tigray. Goodhag oo su'aasha ka jawaabay ayaa yiri waxaan ka warqabnaa in ciidamo Soomaali ah ay joogaan Itoobiya, laakiin hadda ma xaqiijin karo in dagaalka ay ka qayb qaateen iyo in kale, balse waan xaqiijinaynaa arrintaasi ayuu yiri. Ilhaan ayaa mar kale weydiisay Goodhag sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Itoobiya, wuxuuna ku jawaabay waxa aan rumeysnahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwo Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhexmaray labada dowladood. warbixin dhawaan ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo tababar ku qaadanaya saldhig military oo ku yaala Eritrea in ay suuragal tahay inay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in ciidamada Soomaaliya lagu arkay magaalada qadiimiga ah ee Aksum ee Tigray iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Eritrea. Waxaan helnay macluumaad iyo warar ku saabsan in ciidamada Soomaaliya laga soo daabulay saldhig military oo ay tababar ku qaateen oo ku yaala Eritrea si ay ugu biiraan dagaalka Tigray iyadoo ay la socdaan ciidamo Eritrean. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii Janaayo beenisay in ciidamo Soomaali ah oo tababar u jooga Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Tigray. wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo xilligaasi BBC-da la hadlay ayaa sheegay inaysan gebi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigray. ma jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamaya waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Tigray. sabab ay u dhacdana ma jirto, cid naga codsatayna ma jirto ayuu yiri wasiirka warfaafinta xilligaasi.